السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي دمانتين كسو دوادا موضوع كسابسن شخصيات كصوماليدا وعنسن وعنيقو شافي جوري حدا نقود قالوا موضوع عمانتا وعن هلكن نوغوهايا لبا كميدا شخصيات كصوماليدا وعنسن فضلا هذا تكون عصوبتا channel كسبسكرايب سار فيديو هذا تكيشن لايك جري مع السنين شخصيga ugu horeeyay maanta shakhsiyaadka Soomaalida ugu caansan waa Maxamed Siyaad Barre. Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu ahaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya laga bilaabo 21 Oktoobar 1969 ilaa 26 Janaayo 1991. Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku dhashay degmada Shilaabo, Soomaali Galbeed, Soomaaliya. bishii Oktoobar 1999 wuxuu ku dhintay magaalada Lagos ee dalka Nigeria bishii Janaayo 2 ee sanadkii 1995 asagoo ah markaas da'da 75 sano jirka. Shakhsiga labaad ee maanta wuxuu noqon doonaa Xasan Aadan Samatar. Xasan Aadan Samatar wuxuu dhashay 1953 wuxuu ku dhashay degmada Dinsoor ee gobolka Bay, koonfurta Soomaaliya. waa fanaan Soomaaliyeed oo aad iyo aad caan u ah. Xasan wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada Dinsoor ee gobolka Bay.